السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صاحبada aan jecelnahay oo ku soo dhawaada xalqad kale iyo barnaamijkeeni galka xikmada. waa barnaamij isbuucla ah oo aad kala socotaan baraheena bulshada sida Facebook iyo YouTube maalinimada Arbacada ah. xalqadeena maanta waxaan ku qaadaa dhigi doonaa qiso ku saabsan xaaska wanaagsan. nin ayaa xaaskiisa u waday shay quraan saar ah si uu quraan u soo saaro xaaskiisa kadib markuu ugu shakiyay inay qabto jin. markii quraanka la saaray ayaa hadlay jinkii wuxuuna yiri diyaar baan u ahay inaan ka baxo laakiin hal shardi ayaan wataa. sheekhi ayaa ka diiday wuxuuna ku yiri ka bax shuruud la'aan. jinkii ayaa yiri horta dhageyso shardigayga. sheekhi ayaa yiri waa maxay shardigaada? jinkii ayaa ku jawaabay ayadu waan ka baxayaa waxaan galayaa ninkeeda ama xaajigeeda. ninkii ayaa ka booday halkuu taagnaa asagoo argagaxsan. sheekhi ayaa yiri maya lagama yeelin. jinkii ayaa ku jawaabay ma taqaanaa sababta aan u rabo inaan u galo asiga? sheekhi ayaa yiri waa maxay sababta? jinkii ayaa ku jawaabay maxaa yeelay isagu salaada ma tukado. sheekhi ayaa weydiiyay arrinka la sheegayo waa uu beeniyay ninkii arrinka. sheekhi ayaa la hadlay jinkii idhageyso ka bax ayada waxaad ahaataa mid u dhow gurigooda hadduusan tukanin gal markaas. jinkii waa uu ogolaaday. waqti dheer kadib haweeneydii wanaagsaneed waxa ay la xiriirtay sheekhi oo ay u mahad celisay. wuxuu weydiiyay xaaladda zawjkeeda ama ninkeeda waxayna tiri wax salaad ka tago iska daaye albaabada masjidka xitaa asaga ayaa furo. waa mid joogtay oo ilaaliya salaad walba waqtigeeda. haweeneydan ma aysan ahayn qof jin qabta ama wax la mid ah, kaliya waxa ay rabtay in xaajigeeda salaada ka tagay uu tukado. haweeneydani waa haweeney saalixad ah taasoo jecel gacaliyaheeda. waxay u cabsatay xaajigeeda adduun iyo aakhiro. maxaa ka wanaagsan haweeneydan? haddii aad soo gaartay ilaa iyo dhammaad waxaan kaa codsanaynaa inaad videogan like gareyso aadna share gareyso haddii aad awoodid. mahadsanidin.